gudoomiyaha xaysimeed degmada Taleex Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sida uu sheegay waxa xalay ciidamada Puntland ay u dhigteen jidgooyo xilli warbaahinta kula hadlayay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa waxa uu sheegay in halkaas uu ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland ee degmada Taleex dhaawiciisana la soo gaarsiiyay sidoo kalena maayirka degmadaasi la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Laascaanood xalay shil baa dhacay shilka dhacayna wuxuu ka dhacay gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo dhexdooda aniga iyo maayirkii degmada Taleex Cornel Salmaan Cabdi Jaamac gaashaanla dhexe ayaa waxa jidka noo galay maleeshiyaadka Puntland ee meelaha lagu soo ururiyay halkaas oo ay dhibaato u geysteen gaarigii iga horeeyay ee ay wateen maayirka iyo taliyihii guutada Salmaan Cabdi Jaamac halka waxa ku dhintay Salmaan Cabdi Jaamac Allah yarxamo Ilaahay ha u naxariisto naxariista jannada ka waraabiyo wuxuu ku dhintay degeeri xaq isagoo dhulkiisa maraya oo dhulkiisa ka shaqeynaya ayaa maleeshiyaadkaas si xaq darraa ay jidgooyo u dhigteen u dileen waxa kale oo dhaawaca culus ah oo hadda gaari saaray maayirkii degmada Taleex Salmaan Axmed Xaaji Diiriye isagana waxa uu leenahay Ilaahay uga dhigo nabarra xaq darro caafimaadna Ilaahay siiyo waxaan leeyahay maamulka Puntland ee maleeshiyaadka ku soo ururaya deegaanada Soomaaliland waxaan leeyahay warskaga waantooba dhulkan iyo dadkan ay xaq ku lahayn maalin walba qof dhulkiisa maraya jidka rabtaan inaad u gashaan tii xumaan iyo dharbaaxo culus ba ka damayn doonta wixii ka dhacay ninka ka mas'uul noqon doona oo dhacay xalay koodiyo barkii malaha والله قاريكي هو بربراي قاريكي مايركي وتين هو بربراي كورنيل كنا دوا كودنتاي ماير كنا دوا كان هذا يسقي أنو قاريك ساري حالك ساعة ركتان أنا كان قاريكم بدباتنا قاري لكن لكلنا قاري مش نو هذا كبتشران تقولي نوركتين طريقة عادية أنا مريشري أنا ومرينا قبل كيجي ولي أنا كذا ما بحسمه ayay jidgooyada noo dhigteen halkaas ay ku dileen korneelka iyo maayir Cabdikariin Nolol SBC magaalada Laascaanood